wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan marka horena warbaahinta qaran ee muqdisho qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidan badan dowladda Soomaaliya oo la wareegay deegaanka Runulgo ee gobolka Shabeellaha Dhexe sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ilaaladiisa oo qarax lagula eegtay qaybo ka mid ah hoostaga degmada Mahadda ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo muddo 6 bilood ah ku kordhiyay dhimista ciidamada ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya xiisad ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo ciidamo hor lagu arkayo qaybaha magaaladaasi gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo qaramada midoobay kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed سنتراد إلهان عمر ومانت قارتي مقالة قلوة عاصمة دولة قبلات كبنتلان غورات كدبدر واحد كمغلي دونتان دولة جامبيا وكل وقتين فشلسي أفغان بميلتري ومكاس القرشين يا راديو قرن كلا سعو ورر سجن أو حقيقة أما بوقو قرنmedia.com markaa ku wanaagsan hoostiyaal qodobadii oo kooban ayaa dhageysateen iminkana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay ciidamada xoogga dalkii kuwa deegaanka iskaashanaya ayaa maanta oo khamiis ah waxay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Runulgo ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasoo muddo sanadaha ay maamulayeen al-shabaab afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Janaax Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidamadu ay la wareegeen guud ahaan deegaanka istiraatiijiga ah ee Runulgo isla markaana hadda ay socdaan howlgallo la xiriira baaritaano dhanka amniga ah uu hadalkiisa intaas ku sii daray in howlgalka ka dhanka al-shabaab ay ka socdaan toddobaadyadii la soo dhaafay deegaanada hoostaga deegaanka Runulgo kuwaas uu sheegay in lagu dilay in ka badan 10 ka tirsan al-shabaab deegaanka Runulgo waa markaasi deegaan ku yaala koonfurta bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana markaasi qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Muqdisho 206 oo markaasi 64 kilomitir waana deegaan dhaca xadka kala qaybiya gobolada markaasi galgaduud iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe dhinaca kale wararka naga soo gaaraya duleedka degmada Mahadda isla gobolkaasi ayaa waxa ay sheegayaan maanta halkaasi qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo ilaaladiisa sargaalka oo lagu magacaabi jiray Allah naxariista laba xidigle Cabdirashiid Axmed Cabdulle ayaa qaraxa minada nooca dhulka lagu aaso qabsaday gaari oo watay xilli uu marayay wadada u dhaxaysa degmooyinka Jowhar iyo Mahadda waxaana halkaasi ku dhintay sargaalka iyo 4 ka mid ah ilaaladiisa sargaalka qarax lagu dilo ka tirsanaa ciidamada guutada afraad ayaa hogaaminayay ciidamo ilaalo ka hayay markaasi deeq mucaawino ah oo laga keenay magaalada Jowhar kuwaas oo loogu talagalay qoysas ku nool degmada Mahadda yeeshee qarax uu qabsaday ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa gaaray halka qarax uu ka dhacay waxaana meydka sargaalkii 4 askari la dhimatay la geeyay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe Allah naxariistay laba xidigle Cabdirashiid Axmed Cabdulle ayaa ka mid ah saraakiisha hogaaminaysay howlgalladii ugu dambeeyay markaasi ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Mahadda isla markaana ay la wareegeen deegaano ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa ay markaasi aqliyada ku ansixiyeen go'aanka waa markaasi waa go'aankii ugu horeeyay oo gaareen golaha ammaanka ee nabadda midowga Afrika kaasi oo markaasi ahaa in dib loo dhigo dhimista 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS ilaa 30 Juun 2023 iyada oo la raacayo warmutiyeedkii uu ansixiyay golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika intii lagu wada jiray shirkii 11 November
qaraar tirsigiisu yahay markaasi 26/7/2022 ayaa si wada jir ah loogu ansixiyey dhimista admis. sidoo kalena waxaa lagu xaqiijiyey in la qaato hab istiraatiijiyadeed oo markaasi tartiib ah oo lagu ilaalinayo jadwalka bixitaanka admis ee 31 Diseembar 2024. golaha ammaanka ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya inay bixiso warbixin dheeri ah 30 Abriil 2023 taas oo ay ku jirto qorshe cusub oo ciidan dhisid ah. sidoo kalena waxaa markaasi la go'aamiyey in la qabto shir rasmi ah oo looga hadlayo isbeddelka Soomaaliya ka dhacaya ugu dambeyn 31 Diseembar waa markaasi ay yiraahdeen Maaj 2023. shirkaas oo ay markaasi ka qayb galayaan Soomaaliya, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya. golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku bogaadiyey admis inay door muhiim ah ka qaataan ama ay ka ciyaarayso sidii Soomaaliya ay kor ugu qaadi lahayd dagaalka ay kula jirto ururka Al-Shabaab. in mas-uuliyadaha admiska markaasi lagala wareego si guul leh Soomaaliyana ay muhiim u tahay nabadda iyo amniga mustaqbalka fog ee dalka. dowladda UK oo ka tirsan dalalka markaasi ku jira golaha ammaanka ayaa sheegtay in ay ku hanweyn tahay in gacan dhaqaale ku taageerto Midowga Afrika iyo Soomaaliya. dalalkan waxay markaasi sheegtay in ay sanadka 2022 markaasi $25 milyan ku bixiyeen admiska markaasi halka 8 milyan oo saxeexay sanduuqa maalgelinta ee Soomaaliya. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna waxaa markaasi ka taagan xiisad u dhaxaysa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidan la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya. xiisadan ayaa salka ku haysa markaasi dhammaadka madaxweynaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ay ka ilaatay 4 sano ee sharciyada ahayd. xiisadan ayaa ka sii daraysa xilli madaxweyne Laftagareen uu wajahayo cadaadis dhinac walba leh, waxaana ay sheegeen inaysan aqbali karin muddada halka sano ah ee baarlamaanka maamulkaasi uu horay ugu daray madaxweynaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. waxaa magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland maanta gaatay senator Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska Mareykanka, iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey. Ilhaan Cumar ayaa waxaa garoonka dowladaha Janaal Maxamed Abshir ku soo dhaweeyey gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Puntland Cabdicasiis Cabdulaahi Cismaan oo ay weheliyeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka iyo dadweyne fara badan. waxayna ka mahad celisay soo dhaweynta loo sameeyey. sida uu qorshuhu yahay, senator Ilhaan Cumar ayaa inta ay ku sugan tahay magaalada Garowe waxa ay kulamo la qaadan doontaa madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Puntland, iyagoo markaasi ka wada hadli doona arrimo kala duwan, iyadoona sidoo kale goorsii horeysaba ay wada kulmeen madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni. Ilhaan Cumar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa salahaan ka soo jeeda Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland. 2018 ay noqotay qofkii ugu horreeyay Soomaali Amerikaan ah oo loo doortay aqalka Koongareeska Mareykanka. booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay Ilhaan Cumar ay ku timaado gudaha Soomaaliya tan iyo markii xilkaasi loo doortay. halkaad warkaasi kala socotaana saaxiibayaal oo warbaahinta qaran ee magaalada Muqdisho. akhbaraadka dibadda qodobka ugu doorka roon haddii aynu eegno, dowladda Gambia ayaa Arbacadii sheegtay inay fashilisay afgambi military ayna xireen 4 askari oo qorsheynayay inay gebi ahaanba afgambiyaan maamulka madaxweyne Aadan Barrow. war qoraal ah oo ka soo baxay ama ay soo saartay dowladdu ayaa waxay ku sheegtay in taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee Gambia ay gacanta ku dhigeen 4 askari oo lala xiriirinayo afgambi la sheegay inuu fashilmay kadib howlgal ay ciidamadu sameeyeen Talaadadii.
isku dayga afgembi ayaa ku cusbeyn dalka Gambiya oo ah dal yar oo galbeedka Afrika ku yaala ay ku nool yihiin 2.5 milyan oo qof oo ay ku hareeraysan yihiin gebi ahaanba dalka Senegal kaas oo weli la ciirciiraya in ay markaasi in ka badan 20 sano oo madaxweynihii hore yahay waa markaasi Jammeh oo xukunka kalitaliska ah ku maamulayay iyo tacadiyo lagu eedeeyay. Jammeh qodhiisa ayaa xukunka afgembi kula wareegay sanadkii 1994 waxaana uu markaasi fashiliyay isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in xukunka looga tuuro ka hor inta aanu guuldaraysan doorashada dabayaaqadii 2016 taas oo ku guuleystay Barrow. xilka qaadistiisa ayaa loo arkayay mid sare markaasi u qaadaysa dimuqraadiyadda walow ay jirto niyad jab xoogan oo ay xukuumadda Barrow ka qabeen in ay wax ka qabato saboolnimada iyo sare u kaca maciishada. warkii habeen oo aad kala socoteen warbaahinta qaran ee magaalada Muqdisho saaxiibayaal waa naga intaas tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo. radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaran